waxaa la ciyaaray kulan ka tirsan horyaalka kubadda gacanta dalkeena Soomaaliya iyagoo markaas wada ciyaaray kooxaha kubadda gacanta Hegan iyo sidoo kale kooxda Ilays kulankan ayaa kamid ahaa kulamada horyaalka kubadda gacanta Soomaaliya iyagoona gabdhaha Hegan ay galabta guul gaareen ee kaga dhigan tahay guushoodii afraad oo markaas ay gaareen waxayna ciyaarta ay ku soo idlaatay 30 iyo waxba kulankan ayaana kaga duwanaa kulamadii hore ee naadiga Hegan iyadoo wili ay tahay hogaamiyaha kooxda waxayna ciyaareen 4 kulan oo xiriir ah waxayna gaareen guul sidoo kale kooxda Ilays 4 kulan ay ciyaartay wax guul ah maysan gaarin oo maanta ay ugu jirtay waxa uu harsan hal kulan oo kaliya ee la ciyaari doonaan kooxda xarunta barbaarinta booliska Soomaaliyeed sidoo kale kooxda Hegan ayaa dhawaan waxa iyagana la ciyaari doonta oo kaliya oo u harsan kooxda Horseed oo dhawaan ay la ciyaari doonto jimcaha ayay ciyaari doonaan 30 bisha ayayna ku beegan tahay waana kulamada ugu xiisaha badan ee markaas la ciyaarayo biri waxa la ciyaari doonaa kulan ka tirsan horyaalka kubadda gacanta waxa ciyaari doonaan kooxda barbaarinta iyo sidoo kale kooxda Horseed oo ka tirsan kulankan midda koowaad waxa uu hambalyeynaa Ilaahay mahadiis midda labaadna waxa uu mahadnaqana ciyaartoyda kooxda ugu jirtay midda saddexaad macallimiinteeda garab taagnaa intaas midda afaraadna waxa uu hambalyeynaa macallimiinta TV-ga waa ku dhawahay waa ku faraxsanaa maanta guusha aan gaaray aniga qof aan yeesaa ma lahan qof aan dhaha waa ka badinaa ma jirto banooniga waa cad iyo madow garoonka hadii la soo galo qof uun bay guusha raacay alxamdulillah shukr bil caalamiin guushii ay raacday marka sanadkan maxaa filaysan maadaama afarta kulan soo ciyaarteen guuleysteen wallahi guusha horta guusha iska ma timaada dadaal ay ku timaadaa macallimiinteena ugu dadaalay ciyaartoyduna way dadaaleen maadaama afartii kulan aan soo guuleystay waa ku faraxsanahay aad iyo aad aan u faraxsanahay marka banoonigana waa cad iyo madow marka waxaan ku faraxsanahay maanta guuleystay rugta labaad ee horyaalka maxaa rajeynaysan والله أرتار وحوا بنوني والله ما ديك روان بدنا ما ديك كرتت إنك صدق حفالتن كالا ده حس لكن وبدنا ما ديك رو وش مركان قرن كسلني ما نو قف وش راعد تاس إله بقى مركزنا عن كهاد لكرنا لكن هذا ما كهاد لكرو أي براب هذا سودو هيلان تي في بالكور كلن كان يجيب جنب وصل بلا عيارها مركز عالم عيار بيسون جودي وقت بدنا بكلي إنجلستو عيارة إلهاين حتى نتبع له أمر قرآن إن شاء الله أرجينا قلبت عيارتان عيار أدونا كنا صوب بنتين عيارها كلام حد كفيلة سامع واتا اللي تون كبيش هرسيد العيار دون تانا والجماعة ما الجماعة كلهم قاس وحفرينا دراسي ديال جروج بوشة رجينيسي yaa ku guuleysan kara horyaalka ee dalkeena Soomaaliya sanadkan ee gabdhaha Guuleed Al Cusmaan Heelan TV Muqdisho